banaanbaxani oo ahaa mid lagu taageerayo xukuumadda federaalka Soomaaliya ee uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta ka dhacay degmada Beledxaawo ee gobolka Gedo iyadoo ay socod ku soo mareen banaanbaxayaasha wadooyinka halbowlaha ee degmada Beledxaawo halka ay ku dhawaaqayeen halkudhugyo ay ku muujinayeen rabitaankooda iyo taageerada ay u hayaan dowladda federaalka Soomaaliya waxaana hadaladoodii ka mid ahaa Farmaajo Xasan Cali Khayre Soomaaliya ugu dambeyntiina banaanbaxayaasha ayaa isugu yimid faras magaalada degmada Beledxaawo ee gobolka Gedo halkaasi oo ugu dambeyntii ay kala soo qayb galeen banaanbaxa maamulka gobolka Gedo iyo kan degmada Beledxaawo gudoomiyaha degmada Beledxaawo Axmed Barre Sheekh ayaa sheegay in ay garab taagan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana ay taageero buuxda u hayaan madaxda qaranka soo qayb galno shacabkanaga oo muujinayo dareenkiisa wadaninimo iyo qofka Soomaaliya saqiir iyo kabiir mudaharaadkan quruxda badan qof soo diyaariyo male barasaabka gobolka Gedo Cusmaan Nuur Xaaji Macallim oo ka hadlay goobta ayaa u mahadceliyay bulshada ku dhaqan degmada Beledxaawo ee gobolka Gedo sida ay u garab taagan yihiin madaxda qaranka waxaana barasaabka uu sheegay in loo baahan yahay in la garab istaago madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha kuwaasi oo shaqo badan ka soo qabtay dalka muddada ay xilka hayaan runtii waxaan u Beledxaawo inay tahay horseedka gobolka Gedo ee gaar ahaan dowladda markii midhaha la taageera meesha lambarkeedu dowladda ugu taageero badan inay tahay waxaan u dowladda Soomaaliya inay cageeda dib ugu istaagtay cid leexin karta inaysan jirin qof danihiisa wata maanta inuusan dhinac u leexin karin dowladda waxay ku guulaysatay siyaasadda dalka iyo siyaasadda dibadda iyo dhinaca dhaqaalaha dhisitaankiisa intaba ay ku guulaysatay dowladdan waa dowlad horumartay oo dal shisheeye aanan looga talinaynin oo maskaxdeeda ka talinaysa gobolka Gedo meel kasta dowladda waa laga taageersan yahay Soomaaliya dhan waa laga taageersan yahay dowladdiidka Maxamed Kaafi Adam Bishaar Kaafi UK warbaahinta qaranka degmada Beledxaawo